kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada saaki aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah maamulada Puntland iyo Hirshabelle oo heshiis gaaray madaxweyne Xaaf iyo senator Muuse Suudi oo ka wada hadlay maqaamka magaalada Muqdisho qaar ka tirsan shaqaalaha hay'ad samafal oo laga afduubtay gobolka Gedo laba arrin oo sababtay in xabsiga ay ku sii hayso dawladda federaalka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Rowa oo Mansuur qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka dalka media balse aan ku bilow maamulka Hirshabelle intii madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu ku sugnaa magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxa uu kulamo mir dhalay la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyagoo kala saxiixday dhowr heshiisyada ay kala saxiixdeen maamulada Puntland iyo Hirshabelle waxaa kamid ah in Puntland ay sii dayso dadka ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle oo maxaabiis ahaan ugu xiran deegaanada maamulkaasi Puntland si uu u dhaxmaro labada maamul iskaashi dhinac walba ah feenka maamulka Hirshabelle Daawud Xaaji Cirro ayaa sheegay in heshiiskaasi uu ahaa mid ay ku wada heshiiyeen madaxweynayaasha Puntland iyo Hirshabelle Saciid Cabdullaahi Dani iyo Maxamed Cabdi Waare markaan uu goobjoog ka ahaa wasiirka amniga Hirshabelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle waxa uu sidoo kale sheegay afyeenka maamulka Hirshabelle in sidoo kale madaxweynayaasha ay soo qaadeen iskaashi la xiriira amniga federaaliinta iyo ganacsi intaba kulankii fashilka ku dhamaaday ee Garowe ka dhacay ayaa waxa fursad u noqotay maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle oo heshiis dhinacyo badan taabanaya la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynayaasha maamulka Puntland Hirshabelle Koonfur Galbeed markuu dhamaaday shirkii ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland isla markaana lagu kala tagay waxay kulamo gooni ku qaateen magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland kuwaasi oo markii dambe isla afgartay in ay heshiis gaaraan oo iska daayaan waxyaabaha markaasi qalaasaha u keeni karaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maalin ka hor hadlay waxa uu sheegay in heshiis ay wada gaareen maamulada Puntland iyo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed kuwaasi oo uu sheegay in uu ka dhaxeeyo arrimo badan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa wuxuu kulan la qaatay senator Muuse Suudi Yalaxow oo kamid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulankan ayaa ahaa mid ay isku xog wareysteen xaaladda dalka waxaana senator Muuse Suudi Yalaxow madaxweyne Xaaf ku amaanay dadaalkiisa ku aadan difaacada qadiyadda maqaamka caasimadda oo kamid ahayd ajendayaashii la isku mari waayay kulankii wada tashiga ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland isla markaana u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka inta lagu guda jiray kulankooda ayaa waxay isku raaceen in la adkeeyo arrinta ku aadan maqaamka caasimadda oo wali dawladda federaalka Soomaaliya aysan wax go'aan rasmi ah ka gaarin isla markaana tiro dhowr jeer ah khilaaf xoogan dhalisay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa kulan ku dhaxmaray madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda Soomaaliya kuwaasi oo isku fahmi waayay ajendayaal badan oo ay kamid ahaayeen maqaamka magaalada Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn ugu soo horjeesatay in loo sameeyo maqaam magaalada Muqdisho waxaa degan in ka badan 3 milyan kuwaasi oo maqaam gooni aan lahayn kulanka ku dhaxmaray caasimadda dalka Kenya ee Nairobi madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo senator Muuse Suudi ayaa wax u imaanaya iyadoo la isku fahmi lahayd maqaamka magaalada Muqdisho rag loo maleynay inay ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa laba qof oo shaqaale samafalayaal ka afduubtay gobolka Gedo labada qof oo ka kala shaqeynaya hay'ado kala duwan ayaa laga afduubtay deegaan lagu magacaabo Geed Weyn oo qiyaastii 30 kiiloomitir dhanka qorax ka soo bax kaga beegan degmada Doolow ee gobolka Gedo labada qof ee la afduubtay ayaa ahaa shaqaale Soomaaliya oo magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Suubo Cabdulle iyo Cabdullaahi Cabdirashiid mas'uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka ee gobolka Gedo la hadlay warbaahinta ayaa uu sheegay in labadan qof ee la afduubtay xilli ay ku guda jireen shaqo ay u tageen deegaanka Odweyn ee gobolka Gedo wararka qaarna waxay sheegayaan in ka hor inta aan la afduubin labadan qof ay ka yimaadeen dhanka degmada Luuq ee gobolka Gedo bilooyinkii u dambeeyay waxaa lagu afduubanayay shaqaale samafal kuwaasi oo ay afduubanayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab
iyagoo markaasi ku guda jira shaqadooda. Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa muddo ku dhow 150 maalmood ku xiran si ay maamulaan ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo ku yaala taliska ugu weyn ee Habar Khadiija, waxaana soo taraya qaylo dhaanta loo jeedinayo dowladda ee ah in la sii daayo Abu Mansuur. Ilaa hadda ma jirto maxkamad la soo taagay Abu Mansuur, waxaana dad badan ay u arkaan xarigiisa inuu yahay sharci darro, iyadoo lagu eedeeyay hoggaanka dowladda Soomaaliya inay soo taageen heshiisyo badan lagu sii daan lahaa Abu Mansuur. Shalay oo u dambeysay magaalada Baydhabo waxaa kulan ku yeeshay odayaasha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada koonfur. Warar hoose ayaa waxay sheegayaan in Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ay dowladda Soomaaliya u haysato laba arrin oo kaliya, kuwaas oo kala ah: Abu Mansuur waxa uu haystaa dhalinyaro hubaysan oo leh awood ciidan, kuwaasi oo mucaaradi kara dowladda Soomaaliya, waana qodob ka mid ah waxyaabaha ay uga cabsi qabto sii daantiisa. Dowladda oo gabaabsi ah, haddii ay dowladda Soomaaliya sii dayso Abu Mansuur, wuxuu ka mid noqonayaa mucaaradka dowladda ee dhanka siyaasadda, wuxuuna ku wiiqayaa awoodda dowladda saameyntiisa siyaasi iyo midda deegaan. waana sababta labaad ay dowladda Soomaaliya uga cabsi qabto Abu Mansuur. dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Farmaajo oo rajo ka qabta doorashada 2020 haddii ay sii dayso Abu Mansuur oo ka saameyn badan lafta gareen, waxay aaminsan tahay inay lumin doonto deegaanada koonfur galbeed. arrimahaas ayaa la sheegay inay yihiin qodobada ugu weyn oo ay dowladda Soomaaliya xabsiga u hayso Abu Mansuur oo ah hogaamiye saameyn ballaaran ku leh deegaano badan oo Soomaalida ay degto, gaar ahaan dhulka koonfur galbeed iyo beelaha ku heebta ah Roobo. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Dalka Media. intaana warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.